كان يوها ميدا يسكوكو يمد odayasha waxgaradka mid kamid ah beelihii dhawaan dirirtu ku dhaxmartay deegaanka ka xandhaale deegaanna hoos maada ayaa waxay kaga hadlayeen arrimo dhowr oo ku saabsan colaadda deegaankaasi ka dhacday qaar kamid odayasha waxgaradka kulankan ay qabtay waxa ay ka hadleen cid ay u arkaan inay dhamaan karto colaadda ka dhacday deegaanada higla tiriye deeqle oo u dhaxeeya deegaanada ka xandhaale iyo sidoo kale galinsoor iyo odayasha kulankan ay qabtay waxa ay ka hadleen dhexdhexaadnimada ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedka galmudug ee ku sugnaa cadaadad gaalkacyo iyo galinsoor kuwaasi oo sheegeen inay dhexdhexaad ka noqon karin colaadii ka dhacday deegaanada deeqle iyo sidoo kale higla tiriye oo u dhaxeeya ka xandhaale iyo sidoo kale galinsoor odayasha kulankan ay qabtay dhinaca kale waxay ka hadleen wuxuud ka socota dawladda federaalka ee Soomaaliya oo loo soo diray dhexdhexaadinta beelaha halkaasi dawaan dirirtu ku dhaxmartay iyo hadafkooda waxaanu maraynaa heer aanu isku baaba'nay waxaan ogeysiinaynaa caalamka oo ka codsanaynaa in arintayada la eego qodobkaas adduunweynahan u jeedinaynaa aniga ra'yigayga iyo taladayda haddii aan ka soo laabto waxa laale wixii dhexdhexaadinaya oo waxa aan isku hayno markii aan isku nimaadno la oranayo maxay yihiin markaas yaanu tilmaamaynaa waxaan isku hayno 40 sano bini aadankaas aan isugu go'ay waxaanu cadaynaynaa in la ku soo duulay u badnayd 40 sano haddii loo leexdo dhanka islaamnimo anagu ma diidan inaan bini aadanka nabadgelina ma diidan balse waxaan adduunka iyo islaamnimadaba ka codsanaynaa nimankaas inay 40 sano saacad iyo saleebaan weerar nagu hayaan markii u dambeysay oo hadda waxaas garab siiyay oo dhaliisheeda aanu muujinaynaa ciidamada leeyahay dawladda Soomaaliya samaysatay oo galmudug ku magacaaban inay nagu soo duuleen shalay iyo maalintii ka horeysay federaalka ciidamadu samaystay inay nagu soo duuleen oo beelahaas noogu darmadeen yaanu cadaynaynaa markii la iska hor yimaadana yaa tilmaamaha cadaynaya aan soo dhigaynaa anigu meeshaan dagaaladan ka jira galinsoor iyo dhabad iyo deegaanka Soomaaliya oo xabadu ka socotay 47 sano 37 sano haddana ay socoto dhibkaas baa iskugu keenay iyo xaaladaas ayadoo dhibkaasi jiro baa waxaa lagu xalliyaa haddii dhib dhacoyaa gardaran dhibaatada socotana waxay ahayd dalka Soomaaliya oo Soomaalidu wadan ay wada joogtay ahaa markii dagaaladu dhaceen dalkii Soomaaliya oo beeshaani degi jirtay oo qaybta ay u lahayd waxa ka saaray beesha Habar Gidir baa ka saaray ayadoo mar UAC kaashanaysa mar maxaakim kaashanaysa mar galmudug iyo federaal kaashanaysa dagaalka wuxuu socdayba hadduu soo gaaray markii dalkii Soomaaliya laga baxay dagaalka ka socda Itoobiya sida ka xandhaale tacdeer firinti foore ballacad inta oo Itoobiya dagaalada ka socda anagu markaan nahay beesha Maxamed Amaan reer oo shacabka lagu godmaaday Itoobiya nooma taalo waxay u taalaa dawladda Itoobiya oo shacabkeeda la weeraray ayadana lagu laayay qalabkeedii iyo ciidankeedina lagu qabsaday bay u taalaa anagu markaan nahay beesha wagardhaceed ee dalka Soomaaliya degan lagana saaray waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka iyo madaxda hadda la soo diray in dagaalkaas dhacay oo shacabka ku dhacay Itoobiya degan ay wadeen fiqi iyo dawaa oo nimanka xildhibaanada ah ay iyo siyaasiyiin kale ay ka dambeeyaan waxaan iskugu nimid inaanan aqbalayn ciidamada weeraray dadka shacabka ma kasta awal deegaankii Soomaaliya ka saaray sida galinsoor ay lahaayeen tuula qorax cilmuudaan deeqla kabawer tuula sarmaan miracawleed inta ka saaray kabacdina yiri dalkii Soomaaliya waa ka saaray kan Itoobiyana aan ku weeraro inaanan aqbalayn ciidamada federaalka iyo galmudug oo dagaalka galay inay dhexdhexaad ka noqdaan ma aqbalayno markaan ay beesha wagardhaceed mana yeeli doono waxaana la yiri haddii laba qolo diridho qolada gardaran buu yiri ilaahay ha la maslaxada qolada gardaran ha la wada dagaalo
marka anagu waxaan u sheegaynaa markaan hello deegaankii aan lahayn sida Gallinsoor biyo gaduud Toola Sarmaan ka xandhaale beesha dhulkii aan lahayn markaan anagu hello Toola Qorax iyo Ceel Muudaan oo Soomaaliya oo nala ka saaray markaasaan ka hadli karnaa mana ka dhexdhexaad noqon karaan nimankii weeraray sida Galmudug iyo ciidamadii federaalka wadankan joogay dhexdhexaad kama noqon karaan ayagii saraakiisha hogaaminaysa dagaalkana amray waxaa dhexdhexaad noqon kara haddii dadka dhexdhexaad laga noqonayo ciidamo aan ciidamada ahayn iyo dowladda federaalka ciidamo kale oo gobollo kale iyo wadamo kale laga keenay iyo dowladaha kale oo dariska dhexdhexaad ka noqon kara iyo Soomaalida kale iyo Afrikaanka kale iyo caalamka iyo ugaasiyada ummadda Soomaaliyeed laakiin ninkii Galmudug ahaa ama federaalka ahaa oo gaaska deganaa iyo cadaado oo aan xaqiijinayno inay inta tiknikadii qaateen weerarka qaadeen shacabkiina ku baruugeen Itoobiyana ku weerareen ma dhexdhexaad ma ka noqon karaan waxaan maqlaynaa waxaa la soo diray xildhibaano iyo niman saraakiila ma ka yeelayno annagu waxaan yeelaynaa oo shir Soomaaliyeeda dad dhexdhexaad oo cadaalada markii la helo Gallinsoor shirka lagu qabanayo ama biyo gaduud lagu qabanayo iyo wixii deegaankaas oo laamiga ah markii aan taa helo baanu diyaar baan u nahay nabad Soomaaliyeed laakiin dalkii Soomaaliya anaa kugu weeraray anaa ciid anaa maamula waa ka saaray anaa garta galaya ma yeelayno mana yeeli doono waxaan hadalka ka baxayaa laba qolo haday diridho qolo labaduba ma gardareen qola gardaran waxaan ka codsanaynaa caalamka Soomaalida fiyow dowladda federaalka annagu dhulkan deganayn sida Gallinsoor Dagaari Hadaado wadankii aan wax ka deganayn oo Soomaaliya oo waana la ka saaray asagii markaan tagno oo hello oo nabadgelyo ku tagno Soomaalina aan diyaar u nahay Islaamnimo aan diyaar u nahay walaalnimo aan diyaar u nahay waxaa dhacday in saxaafadda laga hadlay in shiyaar jecel xildhibaanka ka dambeeya dagaalka waa been abuurad wax ka jiraan ma jiraan waxaa la yiri intuu tagay Addis Ababa iyo xagga iyo deegaanka asagoo ciidamato xagga qalab ka dajiyay been weey waxaa xaqiijin kara dawladda waxaa xaqiijin kara dawladda Itoobiya ay ku been abuuranayaan qalab ay siisay ay leeyihiin waxaa xaqiijin kara dawladda federaal ayaga og waxay ku hayaan warar badan oo aan halkan ka sheegayn iyo dadka ay weerareen bay haddana sabab ay waxay leeyihiin waa la soo weerarayo Itoobiya na weerarday oo Itoobiya la dagaalamayso Itoobiya ma weerarin Gallinsoor ma weerarin Kabawar ma weerarin Mircawleed ma weerarin Dhabad inta Itoobiya midna ma weerarin iyada xuduudeeda loogu tagay sida Gallinsoor Mircawleed Toola Sarmaan Ceel Muudaan iyo laga soo barakiciyay oo Soomaaliya ah oo dadka Toola Qorax dadka dagaalkaas wada oo barakacaas wadana ay yihiin dad siyaasiyiin ah oo ka tirsan dowladda federaalka ah dadkaasi waxa weeye xildhibaano sida Axmed Macallin Fiqi oo kale sida Odawaa madaxmudane Maxamed Axmed Geelxaab oo ka wada siyaasad ayagoo ugu dhumanaya dadka in lagu xasuuqo arintaas kaga dambeeya waxaa idin cadeynaya dagaalkii ka dhacay shalay lagu xasuuqay dadka maatada ah oo lagu laayay gacan dhaale waxaa watay ciidamada federaalka ah ciidamadoodii baa watay gaadiidkoodii baan soo bandhigi doonaa calaamadoodii baa soo bandhigi doonaa arintaasi waxa weeye waxa lagu xasuuqayaa iyadoo boor la isku qarirayo oo la rabo dadkaas in laga barakiciyo awal hore loo barakiciyay markii Soomaaliya lagu barakiciyay waxa looga daba tagay xuduudda Itoobiya sida gacan dhaale iyo dacreer baa uga daba tagay ayagoo raba Soomaaliya inaysan degin waxay ka wadaan meelo badan baa nimanka siyaasiyiinta ay ka wadaan dagaalkaas sida baalka la yiraahdo Hiiraan sida Balanballe sida Shabeellaha Hoose arrimahaas ayagoo isku qarinaya boor isku qarinaya nimanka siyaasiyiinta waxay rabaan inaan Soomaaliya degin bay rabaan inay dadka isku qariyaan ayagoo shaatiga gashan dawladda waxaan rabnaa dawladda federaalka golayaasheeda dhexe iyo dadka islaamka oo jecel nabadda inay arintaas soo farageliyaan oo ay arkaan oo dadka xasuuqa laga daayo laga gardaran yahay oo hantidoodii la dhacayo ma dhiigoodiina la daadinayo sidaasaan beesha caalamka iyo dawladda federaalkaaba aan ka codsanayna Ciid Cabdi Maxamed wararka kalsan caabud waq